عينيني وعردينا هلا يسيو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن دغيستيال كسو دhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba mar aad ka dhageysataan idaacadda radio Kismaayo codka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ururka caafimaadka markale kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal barnaamijka caafimaadka toddobaadkiiba waxaynu ku soo qaadanaa hadba mowduuc toddobaadkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena dhibaatooyin caynkee ah ayay markaa kala kulmi karaan hooyooyinka xilliga ay uurka leeyihiin ama ay markaa dhalayaan in qalliin lagu sameeyo waxaana markaa si toos ah aynu barnaamijka toddobaadkan ugu jeexjeexi doonaa dhibaatooyinkaasi iyo waxyaabaha looga hortagi karo iyadoona barnaamijka toddobaadkan ay marti ugu tahay igalana qayb qaadanayso Dictoraysa Miski Cabdi oo iyadu markaa kamid ah dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan Isbitaalka Soomaali Suudanees dhaqtarada oo aan markaa wax badan ka weydiin doono xaaladan iyo waliba waxyaabaha markaa looga hortagi karo iyo waxa markaa looga baahan yahay hooyooyinka xilliyada ay uurka leeyihiin inta aysan dhalin ayaan ugu horeyntii waxaan wax ka weydiiyay saameynta ay ku keeni karaan hooyooyinka uurka leh xilliyada ay dhalayaan ku degdegida qalliinka oo markaa inta badan ay saameyn kala kulmaan awalan walaalkay waa maadsantahay waa ku dhowhay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Miski Dictoraysa Miski Cabdi Cismaan inta aan ka ogahay waxyaabaha qaarna way jiraan waxyaabaha qaarna maxaan ku raadayay ma jiraan inta badan markii loo eego maxaan ku raadayay barnaamijyadaas iyo haweenka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay arrimahaas ku qabaan waxa kamid ah in la dedejiyo way dhacdaa qaarkoodna maxaan ku raadayay way dhali waayaan oo bridge presentation qofku haduu noqdo oo markaas cunug uusan toosanay bridge presentation waxa laga jeedaa markii uu dabakeen yahay marka arrimahaas markaas ay sababtaa inta badan waayahay inta badan marka ay dumarku foosh yihiin ka waran xaaladaha ay maraan hadii aad sharaxaad kooban ka bixiso inta badan markay foolnayaan maamooyinka qaarna si caadi ah oo maxaan ku normal delivery ay u dhalaan si caadi maxaan ku fooshaan wax dhibaato ma qabaan qaarkoodna maxaan ku raadayay waxa ka tagta foosha marka in la caawiyo noqonaysa inta badan dawooyin la siiyaa jiro oo lagu kaalmeenayo markaas maxaan ku raadayay maamada si ay tabar u yeelato maxaan ku raadayay laba qaybood ay u sii kala baxaan qaybina maxaan ku raadayay waa qayb oxytocin la yiraahdo oo faleembada maxaan ku raadayay normal salinka loogu daro qaybina waa maxaan ku raadayay kaniini oo markaas loo geliyo maxaan ku raadayay arabka hoostiisa iyo minka marka waxa ujeedkaas loola jeedaa intaas oo dhanba inta badan inay maxaan ku raadayay gabadhaas ay yeelato tabar si ay markaa u dhasho qaar la reexana way jiraan oo vacuum loo isticmaalo oo maxaan ku raadayay awoodi weysaba in markaas inay daato marka waxyaabahaas oo dhan maxaan ku raadayay ayaa loo sameeyaa oo markaas lagu taageerayo maxaan ku raadayay in dhalaanka oo dhasho waayahay laakiin inta badan ma jiraan marka xilliyo ama saacado hooyooyinka marka ay foosha ku guda jiraan loo qabto bal arrinkaas ka waran way jiraan daktarka inta badan marka obis aan geynaha ah oo ku soo taqasusay qaybaha haweenka asiga markii umulisada laga tago umulisada marka waxay sameynaysaa inta badan ay ka dhalaysaa normal delivery sida caadiga macnaha hooyooyinka u dhala si abnormal oo markaas qeyr caadi ah inta badan dhakhtarka go'aan ka gaara hadii uu CS yahay oo cesarean section laga soo gaabiyo oo marka qaliimaadka haweenka ah inta badan local iyo general anesthesia suuxdinta ay u kala baxdaa marka inta badan qaarka dambe laga suuxiyaa marka sida markaas looga macnaha loo kala badbaadiyo hooyada iyo dhalaanka
way jiraan waxyaabo markaas oo yani markii loo fiiriyo biy'adeena Soomaalida qaara yani isbitaalaadka u furtay ganacsi oo markaas aan maxaan ku raad dhowreen anshaxi sidoo kalena anshaxa caafimaadka qofku markuu barto wuxuu naxayaa maxaan ku raad yani biy'aadkaas markaas yani iyo xaaladda markaas haysato qofkan maxaan ku raad miskiinka qaarna maxaan ku raad way yani u diirnahayaan oo maxaan ku raad processkii aad u faafin qaarna ganacsi u fiiriyaan waayahay marka la marayo habraacyada kala duwan ee qaliinka haddii iyadoo saacadihii loogu talagalay foosha runtii ay ka degdegto inta badan waxaa dhacda magaalooyin qaar ah Kismaayo oo aan kala hadlayo arrimaha caynkaas oo kale waa ay ka dhacaan maxay markuu hooyada u keeni kartaa iyadoo aan xilliga qaliinka la gaarin in lagu degdego inta badan maxaan ku radaa waxyaabo badan u keeni kartaa waayo anesthesia qofkan uu huri waayo qofkan in la sooxiyo maadaama oo naf bilaadan oo laba nafla la kala yani badbaadinayo anesthesia dhibaato badan ay leedahay awalan qofka maxaan ku radaa saameynay yani ku sameeyay qofka maxaan ku radaa yani marka koowaad inuu yani soo kabso waayo maalmaha ugu horeyso muscle weakness inuu tabar dareemo kala kamid oo murqiyo markaas ay shaqeey waayaan waxa kale oo kamid ah back pain dhabar xanuun qofka yani maxaan ku raday mar walba in macnaha oo madaxa xanuuno waxaana ugu sababa macnaha complication yani dhibaato yani iyo reed ay yani ku reebanay maxaan ku raday programkan lagu sameeyay maxaan ku la socdinta dhibaatada ugu weyn intaas ah waayahay qaliimaadkii oo markaas lagu sameeyo qofka waa naafo mar hadduu qaliin galo laga yaabay inuu markaas kabale yani biyo u soo qaadan karo waayahay marka aad fiiriso khibradaada caafimaad ahaan inta badan marka ay fooshu timaado dadka ku dhageysanaya haddii gaar ahaan dadka ay arrimahan qusayso mawduuca inuu ka hadlayno ka waran marka heerarka kala duwan la isleeyahay qaliinka iyadoo qatartiisu ay badan tahay maxay kula tahay in looga badbaadi karo si aan degdeg u dhicin waxa looga badbaadi karaa maxaan ku raad awalan in loo dejiyo qofka 24 hours ilaa laba maalinba aad eegto xaaladda qofkan oo markaas u dhimriso waliba 24 saacadood gudahooda qofka inaad si macnaha control ahaan markaas aad wala socoto xaaladiisa oo maxaan ku raday aad fooliso inta badan haweenka waxa jira process ay markaa maraya markay dhalayaan oo yani 9 sinti ay ku dhalaan 9 sinti waa minkii waa furan minka hadduu qofka furmi waayo oo markaas yani cunugii kafka soo mari waayo oo isleeda markaa xaaladan maamadan cunuga macnaha ma duca karto kale ama markaas ay istiraado qatar oo ku jira cunugii oo gudban yahay يعني waxyaabahaas dhan aqaliimaadka soo waayo laakiin inta badan waxa lagu badbaadi karaa in macnaha loo xasiliyo arinta loo dejiyo si maxaan ku raday ilaa xad yani inaad fooliso oxytocin ka soo kale inaad siiso inta badan maxaan ku raday hal ambula la siiyaa oo loogu daro loogu barxaa normal salinkaas maxaan ku raday si aysan dawadaasi yani saaid aysan u qabanin marka dawooyinkaas oo kale inta badan maxaan ku raday lagu baxnaaniyaa oo dawooyinkaas inaad sisaal rabaa oo xaaladeeda jeexito qof qabiir ah qofku markuu yahay maxaan ku raday marka dhakhtar oo isangeyna uu la joogo inta badan kuma degdego qaliin maxaan ku raday xaaladda dhabta ee markaas yani maamada haysato yani oo eega waayahay inta badan marka aad dhaqaatiirto arrimahan aad wax ka weydiiso badana eedda waxa ay dusha u saaraan gabadha ama hooyada uurka lahi maxaa dhankooda iyaga ka jira aad isleedahay xilliga inta aysan foosha qaban maxaa waajibaada hor yaalla oo inay qabtaan loo baahan yahay hooyooyinkeena inta badan waxaa jiro maxaan ku raday MCO waxaa jiro maxaan ku raday goobo caafimaad oo wadankeena Soomaaliya ka wada furan sida isbitaallo waxaa moodaa hooyooyinkeena inaysan waxyaabaha qaar ee maxaan ku raday aysan ku soo jeedin xaaladda markaas aysan ay naftirkooda ay xaalad la soconin waayo qofka wuxuu maraa marka uurka 3 stage 1 waa inay 3 markay ana uurka qaado ilaa 3 bilood
intaas waxaa la rabaa markaas inay yani antenatal care al dhahaa waa yani uurka maamada markii care loo sameeyo message-yada sameeyo isbitaalaadka sameeyo waxaa la rabaa inay si dhibliya oo si toos ah ay isbitaalaadka iyo message-yada markaas caafimaad yani kula xiriiraan oo mar walbo ay yani bil kastaba markaas 3 bilood mar inay tagtaan rabaa hooyada fast trimester-ka ugu horeeyo 3 bilood ugu horeyso waxaa la rabaa inay tagto in xaaladeeda la kontrolo hooyooyinka qaar uguba oo marka walaaca iyo markaas dhibaatooyinkaas aan marka badan ku isbihiin dhibaatooyinkaas aan u kagsa karin in laga wacyigeliyo raba lala taliyo raba hooyooyinka qaar marka maxaan ku yiraahday asbitaalka joogto cunuga qofka uurku maadaama hore u soo qaadi jirin marka uu furdu ku yiraahdo yani dhaqaaqo maamooyinka qaar ka cabsanayo waxyaabaha dhan in consultation la talo looga sameeyo raba maxaan ku isbitaalaadka ay ku xirnaadaan in stage 1 kaas yani 3 bilood ugu horeyso ee maamada imaato waxaa maxaan ku yiraahday la baaro in uur leedahay la ogaado marka yani HB-geeda qofka haduu HB-giisa dhacsan yahay oo yani 7 wixii ka hooseeya ilaa 8 qofka yani hadhuuti tabar ma yeelan karo anemia gaaraya qof haduu anemia gaarna maxaan ku yiraahdaa sida saxda si direct cunugii uma dhali karo taas oo kale maxaan ku yiraahdaa in laga fiiriyo HB-ga la rabaa diagnosis loo sameeyo in xaaladeeda la kontrolo stage maxaan ku yiraahdaa tuuga waa markay 3 bilood dhaaftay ilaa 6 bilood ayadana waxaa la rabaa in maxaan ku yiraahdaa maamada ay ku soo xiranto isbitaalka ama markaas MCH-ka si loo kontrolo xaaladeeda oo maxaan ku yiraahdaa loo qiimeeyo waxaa kaloo la ogaanaa xitaa xilliyadaas maxaan ku yiraahdaa cunugan maxaan ku yiraahdaa iyo qaabka markaas oo caloosha inuu ku gudbay yahay macnaha inuu maxaan ku yiraahdaa direct yahay inuu indirect yahay waxyaabahaas dhan maxaan ku yiraahdaa waa laga kontrolaya hadii anemia tahay hadii malaria hayso xanuunada markaas haayo maxaan ku yiraahdaa waa laga tacaalaya inta ay marka dambe ay maxaan ku yiraahdaa 9 bilood dhameysato maxaan ku yiraahdaa maamada ee marxalada ka sii dambayso ay sii cuslaato intaas oo dhan marka waxaa jiro cunugaas inuu markaas cunug normal oo ku jiro haduu cunugaas abnormal yahay inay culayska siisiido macna u sameeymayso in markaas maxaan ku yiraahdaa laga soo saaro oo waqtiga oo ku sii lumin ayaa meeshaas ka dhacayso marka maxaan ku yiraahdaa waxa loo eegayaa xaaladda markaas ay ku jirto waxa la soconayaa caafimaadkeeda inta badan maxaan ku yiraahdaa waxa laga wacyi gelinayaa maxaan ku yiraahdaa cudurrada markaas ku dhici kara maamada sida infectionka process waxa jiro oo asiga si dhalo sida maxaan ku yiraahdaa program oo UTI oo urinary tract infection laga soo gaabiyo inta badan maxaan ku yiraahdaa maamooyinkeena ayagoo uurkiisa hadana kaadadiya gubayso waxaana waa infectionka hadii isku dhageysato qofka infectionka ee mar walba maxaan ku iska daaweyn weyso ee xaaladda maxaan ku yiraahdaa يعني marka sii dambayso ay kaarad ka sii noqoto waxaan kuma baraarugsanaa maxaan ku raaway qofka haduu caafimaad yahay markaas oo wax barasho kala soo bartay adlisti waxba uga yani bilaabo laakiin qofka haduu markaas urinary tract infection kaas ay baan ku sameeyso maxaan ku raaway kaadi ku hayso marka ka dambayso infectionka maxaan ku raaway yani la isku dhageysto waxyaalo badan uu leeyahay kidney failure program oo kaliya oo marka dambe oo yani isan kaliya ay gaarayso xanuunkii oo markaas maxaan ku raadayay dhibaatooyin oo si dhaxlaaya ayaa jiro maxaan ku raadayay maamooyinka qaar xitaa waxa jiro oo marka kale aan qabin oo arkaysa sokor laakiin markay uurka sidaan maamooyin macnaha sokorta waxa jirto qayb kamida oo markaas maamada markay uurka sidoo ku dhacdo markay dhasana caadi ka noqoto maamada soo kale waxa raba in macnaha cuntooyinka ay cunayso loo kontrolo sida maxaan ku raadayay inay qamadiyo kale ay canjeelada ku dubato yani waxyaabaha qaar oo proteinada ka badan sida baastada kale iyo xaaladahaas maxaan ku raadayay waa laga kontrolaya waxa raba marka biyada ay ku nooshahay iyo maxaan ku raadayay inta badan deegaanka ay markaas yani xaafadaha ay degan tahay in maxaan ku raadayay loo sameeyo health education wacyigelin breastfeeding kaas oo kale nutritionka kale maxaan ku raadayay qoliya Soomaaliyeed maxaan ku raadad macna caafimaad oo kormeer sameeya jira marka waxa soo kale dhamaan inay yani
ku baraarugaan al rabaa ku baraarugumayaan waxay aaminsan yihiin isbitaalka oo markaas MCH-ka ay tagayaan inuu markaas oo macnaha qabsanayo ama maxaan ku yiraahdaa isba ka soo noqon karinba waxa kale ay ka aaminsan yihiin marka dhibaatada ugu weyn ay yani Soomaalida haysato waa baraarug la'aan. waayahay annagoo waqtigaaga qaaliga kaaga mahadcelinayna waxaa dhacda in inta badan annagoo mawduuca barnaamijka ku sii guda jirna haddii qaliinkaas laga maarmaan uu noqon waayo oo hooyadii qaliinka lagu sameeyo inta badan wax baa ka soo noqda oo iyadoo caafimaadkeeda ahaan ah haddii ay noqoto talooyinkii dhaqaatiirta ay siiyeen in ay hareer marto arrimaha marka qaliinka marka la sameeyo soo noqonaya haddii ay noqoto in xaaladeedu ama xaaladii caafimaad ay noqoto mid markaa gargaarkii qaliinka mid kasii daranba u baahan maxay kula tahay waxyaabaha dib dambe kaga soo noqdo haddii hooyada qaliinka lagu sameeyo inta badan waxaa kamid ah maamada inay yani arrimahaas ku dhacaan horta inta badan isbitaalaadka waxay sameeyaan in 3 maalin maamada la kontrolo markii CS-kaas loo sameeyo kadib aysan bixin Ceftriaxone iyo kuradawooyin markaas yani qalajiyaal oo yani ah oo 1 miligram inta badan maxaa kurada loo qoraa dawooyinkaas waxay ka saacidayaan bulshada marka inay qalasho ay bogsato marka waxyaabo markaas ku soo yani noqon karo waxa kamid ah dhaawacaas inuu si bogsoon sida maxaan ku dadka obesity-ga hilibka badan leh inta badan maxaan ku raadayay meeshaan waa meel iska hurtay laga yaabay maxaan ku yiraahdaa qofkan marka hilib badan yahay inuusan dhaqsiya oo soo ureysan marka inta badan xanuunadaas iyo waxyaabahaas ku noqon karo waxa kamid ah yani infection yani ka dhasha meeshaas dhaawaca waayahay haddii aan markaa fiirino qaliinka haddii hooyada marka ugu horeyso laga maarmaan uu noqon waayo lagu sameeyo inta badan waxaa jirta gobolka hadda aan kala hadlayo Kismaayo oo kale haddii aad hooyooyin badan la kulanto waxay kuu sheegayaan in 3 mar qaliin ay gashay taana waxay sababtay in dumar badan ay markaa ka quusadaan ama ay ka niyajabaan dhinaca dhalmada arrimahaas oo kale haddii ay dhacaan ama qof ay ku dhacaan oo kale uu hadda ku dhageysanayo maxaad leedahay laba qayba loo kala saaraya qaybina waa qayb marka qofka inuu wixii yani lagu dadajiyay qofkii lagu dadajiyay waa inuu ka fiirsado oo maxaan ku yiraahdaa xaaladda markaas dhowr isbitaala maxaan ku yiraahdaa Kismaayo ka furan ama maxaan ku yiraahdaa marka deegaanka aad degantaan yani Soomaalida ay degto gobolku doonaba ha aade marka waxaa la rabaa inaan maxaan ku yiraahdaa aad marka horena isla socoto inta badan marka dhibaatada yani maamada qabsanaysa waxay tahay markii ay dhali rabaan yani meesha marka saan lagu rigelnaa inay qaliinta marka ka horeyso oo qofkan oo uurka sida hadii oo xaaladda aan hore u soo sheegay oo 3 bilood hore iyo ka dhexe iyo 3 bilood oo 9 bilood uu ku gaaray oo isla socdo markaas wuxuu og yahay maxaan ku yiraahdaa inuu wado cunug qaliin inuu yani noqdo effectigaas yani saameynta gaarsiinayo ama maxaan ku yiraahdaa wuxuu noqon karaa aan ku yiraahdaa qofkan qof yani normal delivery inuu yahay qofka marka hadii oo computer la saaro ultrasound in dhakhtarkaas oo la xiriiro 3 biloodba mar tago inta badan dhibaatadaas kuma dhaca laakiin marka hore maxaan ku yiraahdaa laga seexda arintii oo yani arintii aan marka hore lagu baraarugsaneen marka taas waayo hadii aad marka aad fiiriso marxaladda marka dambe ku qabsanayso sida emergency-ga inta badan yani maamooyinka arrimahaas ku dhacaan waa maamooyinka kafkooda yar balfiga hadii markaas maamada balfigeeda uu yar yahay oo maxaan ku miskeeda uu yaryihiin sida saxda maxaan ku yiraahdaa dhowr mara sheegtay dhowr yani waxa ku soo noqda qaliimaad marka maamooyinka qaar maxaan ku waxaad arkaysaa in yani qaliimaadkaas mooyaan ay xal kale loo haynin ilaa ma arkino 3 daad 4 daad ayadoo dhasho waxa arkaysaa marka dambe maxaan ku yiraahdaa yani balfikas inuu macna oo yari yahay darteed in yani maamada yani ay qaliimaadkaas ay ku mudanayso tusaale hadii mar walba uurkii qofkii uu qaado
cunugiina oo markay 9 bilood oo yani gaaro oo qofkii mar walba cunugii ka dhimanayo oo yani kafkii ku dhimanayo waxa maxaan kala door bidayaa in la kala badbaadiyo waayo qof mar walba 9 bilood iyo sug soo wada waqti badan iyo juhdi badan hooyo soo martay ina mar walba cunugii markaas oo uga dhinto wax macquul ma aha waxaan dadkiina u taagan yihiin iyo macnaha qoliyaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtii inay kala badbaadiyaan hooyadan iyo maxaan ku raacay cunugeeda mar walba in markaas dhalaankii oo yani oo marka beebeen yani oo ku dhinto oo yani kafkaas oo ku waxyeelo waxa laga door bidayaa in qalin lagu sameeyo waayahay anagoo marka ugu dambeyntii waa ku soo gabagabeynayaa fariintaada caafimaad ee aad halkan ugu direyso hooyooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Kismaayo iyo dhaqaatiirtu maxay tahayba waxay tahay maamooyinka Soomaaliyeed meel allaale meesha joogaan oo marka ay dhageysanayo waxa kula tali lahay kaani ahaan in la isla socdo marka hore oo maxaan ku lagu baraarugo xaaladaha jiro oo maxaan ku lagu baraarugo infectionkaas oo kale ee waxyeeleenayo maxaan ku raadayay xitaa TT program oo yani indhaha looga shubaa jiro cunuga markuu dhasho waxaana looga baqayaa hooyadii maadaama yani ku jirtay caloosheeda in infectionkaas uu waxyeeloobay waxa jiro maxaan ku raadayay maamooyinka qaar oo jug ku dhacday intay maxaan ku raadayay caloosha ku sitay factor waxa jiro oo maxaan ku raadayay influence saameynayo maxaan ku raadayay cunugan bari ka maalin uu kori waayo ama maxaan ku raadayay prenatal inta uurka ku jiray ilaa saameyn ku dhacday ama maxaan ku raadayay postnatal intii marka yani marka cunuga dhashay kadib ama genetic waxyaabo markaas u keenay jinsi ahaan waxyaabahaas oo kale marka waxaad kala macnaha yani waxaad uga badbaadi kartaa mar walba inaad yani la socoto isbitaalada iyo MCJada xarumaha caafimaad macnaha tukatay kugu dhacdo inaad dhiig baxda maxaan ku raadayay sababaysa nafaqa darri haday ku hayso hadii infection ku hayo xaaladahaas oo dhan maxaan ku raadayay yani way saameynaysaa cunug kasta ee markaas caloosha lagu siidana waxa waaye genetic waxyaabo ah jiro oo maxaan ku raadayay qofkan uu dhaxli karo sida hooyada maxaan ku raadayay hypertension qabto hadii dhiig kar qabto way saameynaysaa hadii sokor qabto way saameynaysaa cunugii marka waxyaabahaas oo dhan cunugii يعني بدبادو وهلو عنق بدبادن معناها قبو أدونك أو صبيرو هو يدينا محام كرا ذي وبدبادو وحا محام كرا أنا أهم فر لهاي فأفك والبو يسلس على محام كرا ذي هو يوينك ودريم معي حالة مركز ولا عاي محام كرا يعني على مرها مركز أسوأ إصبحايو وحاول مركز حل جالس رجب الله تو إن هاد أوكا وكشتو ومحام كرا ذي أدلس عطو أختر كوكارة qofka waxa la markasta inuu dhakhtar leeyahay oo maxaan ku raadayay oo MCH tahay oo xanaanooyinka oo gaaro iyo marka hadii tahay maxaan ku raadayay isbitaaladka inuu yahay dhakhtar si toos ah ula socdo wuxuu maxnaa dhakhtarada markaas ku iman doono intuu caloosha ku sido uurkaas ama markuu dhalaayo dhan waxyaabahaas dhan waa laga talinayaa waa qof macnaha maxaan ku raadayay bari ka maalin maxaan ku raadayay og xaaladda markaas ku socdo waayo marba 3 bilood mar kamid ah dhakhtarka u tagto talo ku soo fiina taladiya qaadane waxa kale oo maxaan ku leeyahay maamooyinka ku tali lahaay inay iska dhaafaan cusbada badan iyo sokorta iska mar walba cusbo badan isticmaalo iyo sokorta diabetes macnaha oo obesity noqdo qofka obesity oo noqdo markuu hilboonaado waxay saameynaysaa maxaan ku raadayay jirkiisa waayo qofka haduu movement sameeyno dhaqdhaqaaq sameeyn oo iska saarin waxa imaanayso hooyooyinka qaar waxa arkaysa lugaha bararay waxaan ugu wacan basbadii ay barsadeen dhaqaaq maaya ee socdaan ma rabaan qaarkood maxaan ku raadayay inay guriga iska fadhiyaan oo gambarka saaka waa ugu bariga balna ugu dhacay inay fadhiyaan rabaan marka waxa soo dhan hadii qofku dhaqdhaqaaq sameeyo sokortaas iska yareeyo maxaan ku raadayay asbadaas iska yareeyo cudurrada markaas oo ka hortag oo macnaha uu ku sameeyay hadii aad dhakhtar la socoto oo maxaan ku raadayay isbitaalka mar walba booqanaysana qatarro maxaan ku raadayay ilaa idinkiis kugu imaamaya waxyaabo badan macnaha aad ka gudbaysaa dhakhtarkiina uu kugu weenaya maxaan ku raadayay hadii markaas uu ku arkina qaliintaan uu ku leeyahay maal hiblo kale soo diyaar garow hadii markaas aad maxaan ku raadayay aad dhiig la'aan tahay
iyo markaas waxyaabaas dhan HB-ga mar walba qofka inuu iska baaro maxaan ku yiraahday oo yani iska ogaado hepatitis-yada inta badan hepatitis-yada maxaan ku yiraahday sida ogna bariga hore ma aanu ku baraarugsanayn waxaad arkaysaa inta badan markaad fiiriso gobolladeena Soomaaliya dadka imaanayo ku dhahay cagaarshoogan qaba cagaarshooga marka hadda hepatitis-yada waa lagu baraarugo beerku maxaan ku yiraahday jarjara waxyaabahaas oo dhan waxaa rabaa maamada maxaan ku yiraahday inay meesha ay ku dhalayso isku ogaato meel safe tahay meel safe qofku haduu ku dhalo maxaan ku yiraahday qatar badan oo ka badbaaday laakiin qof meelan safe ay ku dhalay oo maxaan ku yiraahday qalab nadiif aan lagu dhalin dhinageena qatartii way u gudbeysaa maamadina u gudbeysaa marka ani ahaan waxaan kula tali lahay inay isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka xanaanooyinka MCH-yada ay mar walba la socdaan oo nafaqadooda kontroolaan malaria haday ku dhacday waxaa la qofku inuu iska daaweeyo dhakhtarka u tago xaaladda oo ogaado hadii 39 sinti yani degree-ga qandhada uu gaaro 41 39 wixii ka sareeyo qofka feefarkaas badan waxay yani dhuuqaysaa dhiigga HB-ga qofka haduu dhacana maxaan ku yahay maamadii ma tahli karto inay dhasho waxyaabahaas oo dhan rabo marka la iska kontroolo oo dhakhtarka inta badan la socdo ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaad guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka toddobaadkan aad kala socoteen idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland toddobaadkan waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaysay waqtigeeda iyo hurtay Dr. Miski Cabdi oo iyadu kamid ah dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan cisbitaalka weyn ee Soomaali Suudaan istan iyo barnaamijkan xiga dhamaanteed isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo